يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب. hay-adda almustaqiim foundation oo horey looga bartay garab istaagga agoonta iyo danyarta ayaa bishan barakaysan ee ramadaan waxa ay samaysay qorshooyin fara badan iyo wejiyo kala duwan oo ay ugu tala gashay afurinta qoysaska agoonta iyo danyarta ah. hay-adda ayaa maanta wejiga koowaad ee afurinta bisha barakaysan ee ramadaan u samaysay 114 qoys oo agoon iyo danyar isugu jira. waxyaabaha la isku bogaadiyo waxaa ka mid ah sida ay mas'uuliyiinta hay-adda almustaqiim sheegeen in hal ganacsade oo Soomaaliyeed uu 100 qoys oo agoon ah ka bixiyay afurkooda oo ka kooban raashinka qaybihiisa kala duwan sida bur, bariis, sokor, saliid iyo timir. waa kan agaasimaha hay-adda almustaqiim mudane Cabdirashiid Cali Xasan oo u mahad celinaya Cabdulaahi Guure Cabdulle oo ah shaqsigii 100 qoys ee agoonta ah afurkooda xilka iska saaray. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh iyadoo bishii barakeysneed ee ramadaan aan ku guda jirno inuu maanta nagu guuleeyey inaan afurin u samayno qoysas agoon iyo danyar ah oo ilaa 114 qoys ah. waxaana xusid mudan walaalkeen Cabdulaahi Guure Cabdulle oo ah samafale Soomaaliyeed ganacsade Soomaaliyeed ku nool waddanka South Africa in uu 114kaas qoys 100 ka mid ah oo weliba agoon ah inuu afurinta u sameeyey oo isugu bixiyey. waxaa leenahay walaalka ilaahay subxaanahu wa tacaala ajri xasanaad Allah ka siiyo. dhanka kale sida aan tirada guud ku sheegnay 14 qoys ee soo hartay oo danyarta ah iyana waxaa jiro shakhsiyaad kale oo Soomaaliyeed oo ka qayb qaatay afurintooda. waxaana mahad celin kadib sharaxaad ka bixinaya meelaha ay kala joogaan Xabiibo Maxamed Cabdilaahi Shiino oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay-adda almustaqiim. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa walaalaheen kala joogo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ee nagala qayb qaateen gaar ahaan Cabdulaahi Guure Cabdulle oo dadka maanta inta ugu badan isaga afur siiyey 100 qofood oo dadkan ka mid ah. inta kalena waa 14 qofood oo ah dadka danyarta ah. waxaan leenahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin walaalaha nagala soo qayb galay kala joogo Turkiga, Ingiriiska, Mareykanka, South Africa iyo Soomaaliya. maxamed axmed culisow oo isna ka mid ah mas'uuliyiinta hay-adda ayaa si kooban u sheegay in si hufnaani ay ku jirto ay hay-adda almustaqiim foundation u gaarsiisay qoysaskii mudnaa oo loogu talagalay afurinta. waxaanu marqaati uga nahay Cabdulaahi Guure iyo inta la midka ah oo mataqaanaa Yurub iyo Ameerika Aasiya inta marka soo baxday sadaqaadka inay wax alla waxay doonayeen inay maanta u hirgaleen inaan marqaati ka nahay goobjoog ka nahay wax alla waxay la baxeen inaan halkaas ku soo bandhignay waa ay tusoo itaabsi waad u jeedaan waad arkaysaan waa dadkii mudnaay ugu mudnaay magaalada Muqdisho ugu mudnaay ayaan maanta guddoonsiinay. qaar ka mid ah qoysaska afurinta loo sameeyey oo ka markhaati kacay in si dhammaystiran raashinka qaybihiisa kala duwan loogu qaybiyey ayaa aad ugu mahad celiyey hay-adda almustaqiim iyo walaalaha Soomaaliyeed ee hay-adda kala qayb qaatay barnaamijka afurinta. hay-adda almustaqiim waxaana siisay oo raashin bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid agoomanka khayr Allah siiyo intii soo dhiibtay. waxaan u mahad celinayaa almustaqiim foundation oo awalna ilmaheena wax noo bartay haddana wiil noo sii baraysa haddana afarta noogu yeertay aan 100% u mahad celinaynaa. almustaqiim way mahadsan tahay ilaahay ajri xasanaad Allah si qolada soo dhiibatana khayr ilaahay ugu bedelo. gabagabadii barnaamijka ayaa mar kale agaasimaha hay-adda waxa uu cadeeyay in afurintani ay ahayd wejigii koowaad ee qorshaha hay-adda isagoona sheegay inay jiri doonaan wejiyo kale oo afurin loogu sameynayo qoysas kale oo agoon iyo danyar isugu jira. waxuuna bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay hay-adda almustaqiim kala qayb qaataan afurinta qoysaska agoonta iyo danyarta. agaasime Cabdirashiid waxa uu tilmaamay in walaalaha jecel inay ka qayb qaataan afurinta ay ku soo diri karaan waxay awoodaan akoonnada iyo lambarada shaashadda ku qoran. sidoo kale agaasime Cabdirashiid waxa uu bulshooyinka Soomaaliyeed ee dega Yurub iyo Ameerika ugu baaqay inay la soo xiriiri karaan gudoomiyaha hay-adda Cabdixakiim Cabbaas Xaaji Iimaan oo jooga waddanka Mareykanka. waa kan agaasime Cabdirashiid oo arrimahaasi faahfaahin ka bixinaya. marka hawshan waxay ahayd wejigii koowaad oo afurinta qoysaska agoonta iyo danyarta ah. walaalaha Soomaaliyeed kale waxaan ugu baaqaynaa inay nagala soo qayb qaataan hawshan way sii socon doontaa insha Allah tacaala tan wejigii koowaad ahayd wejiyaal kala jiri doono. waxaa halkaas ku dareynaa insha Allah tacaala inaad naga soo xiriiri kartiin lambarada hay-adda iyo akoonnada
akoonada waxaad ku shuban kartiin sidoo kalena gudoomiyaha hay'adda cabdixakiin cabaas xaaji imaan asigana aad la xiriiri kartiin kaash aapka sida fudud shaashadaha ku arki doontiin insha Allah يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سابنا صيامنا ومنا